dil ka baxsan bini'aadanimada oo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu geystay haweeney umul ahayd maxay tahay sababta loo dilay xilli uu goobjoog ahaa sayigeeda isla markaana uusan ka celin ninkii dilka u geystay maxay tahay sababta uu kaga celin waayay xogaa ku gadaaman kiiskani lagu dilay haweeneyda umusha ah ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa daawade laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku bilownay dil aad u arxan daran isla markaana foolxum ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dilkani ayaa waxa loo geystay haweeney umul ahayd sida wararka aynu helayno isla markaana Baydhabo inaga soo gaaraya ay tilmaamayaan haweeneydan dilka loo geystay ayaa waxa lagu magacaabaa Allah u naxariistay Xaabaluul Duka Macalin da'deeda ayaa waxa lagu sheegay haweeneydani in ay jirtay 24 sano isla markaana uu dilay nin ay qaraawo dhow ay ahaayeen sida ay inoo sheegeen ila dadka deegaanka oo xiriiro kala duwan aan la sameeyay waxa wararka aynu halkaasi ka helayna ay sheegayaan in ninkani sababta uu u dilay ay tahay sabab la yaab leh isla markaana fajac iyo amakaag ku abuurtay dadka deegaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen in ninkani uu doonayay in haweeneydani umusha ah uu doonayay in uu ka qaato mobile ay laheeda isla markaana haweeneyda ay diiday in ay mobile-ka ay siiso taa oo keentay in uu nafta uu dhaafiyo toorey ayuu waxa uu kala dhacay dhowr qaybood oo muhiim ah isla markaana jirkeeda ka mid ah wararka ayaa sheegaya in ninkani tooreyda uu ka geliyay Allah u naxariistay Xaabaluul isla markaana dhowr meel oo jirkeeda ka mid ahna uu kaga celceliyay tooreydaasi meelaha uu tooreydani kaga harqiyay ayaa waxa ka mid ah daanka qoorta iyo sidoo kale dhuunta qaybta halbowlaha waliba sidoo kale gacmaha midig iyo bidix ayuu dhaawacyo kala duwan uu ka gaarsiiyay iyo sidoo kale kiliyaha iyo simaha sida xogaha aynu helayna ay tilmaamayaan ninkan ayaana si foolxun nafta u dhaafiyay Allah u naxariistay marxuumad Xaabaluul Duka Macalin oo ka mid ahayd haweenka ku dhaqan degmada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhacdadani ayaana waxa ay uur ku taalo iyo murugo ay ku noqotay dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilliga la dilayay haweeneyda waxa goobjoog ka ahaa goobtii lagu dilayay sayigeeda isla markaana aanan ka celin ninkii dilayay waxa ayna xogu ay sheegayaan in sababta uu uga celin waayay sayigeeda ninka dilayay haweeneydani Xaawal lagu magacaabo ay ahayd in uu ahaa nin naafo ah isla markaana uusan awoodin inuu ka celiyo xaaskiisa waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ninkani uu aad u ilmeynayay xilliga ay soo galayeen guriga uu ka deganaa magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka ku meel gaarka u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ayna sheegeen in ninkani uu ku calaacalayay ii badbaadiya xaaskeyga arxalaaba ayaa tahay maxaad u dilaysaa xaaskeyga iyo erayo kaleeto taa oo fajac iyo amakaag ku abuurtay dadkii ku dhaqnaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu hogaamiyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wali laamaha ammaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana ka hadlin dhacdadani maanta ka dhacday Baydhabo waxaana wararku ay tilmaamayaan in ninkani horay sidan oo kaleeto uu taleefan uu kaga qaatay haweeneydani isla markaana uu cunay waxa ayna xogu ay tilmaamayaan in ninkani uu yahay askuluuste ay la dhaceen maandooriyaha noocyadiisa kala duwan isla markaana laga soo eriyay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qayb ka ahaa waxa la sheegayaa isla markaana xogaa aynu helayno ay tilmaamayaan in ninkani oo lagu magacaabo Aweesa oo qayb ka ahaa ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ciidamadaasi looga soo eriyay kadib markii lagu arkay in balwadiisa ay saa'id tahay isla markaana looga shakiyay in uu iibsado hubka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana saraakiisha oo aynu la xiriirnay ay inoo xaqiijiyeen in ay heleen xogta ninkani iyo dilka uu u geystay marxuumad
xawaluul oo ka mid ahayd haweenka ku dhaqan degmada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. daawade wixii ku soo kordhay xogta dilkani muuqaalada kani xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa. mahadsanidina.